بسم الله الرحمن الرحيم وقيبتني صدحات إنه كجش شاكين إنه إنترنت كاستعمال كيس أما سيدو إنترنت كنا سو جالسي كوما لبده هذا هروح نسوي شيء ميد ديجيتال سبسكرايبر لاين اللي نسوي قلنا يقولوا online guriga inoo yaala internet kana sidoo kale inoo soo dhaxmarayo kii labaadna waxaan soo sheegnay in aanteena gurigeena dusheeda laga taagayo kan saddexaad waa ka ugu fiican qofka inta badan ama ardayga ah ama sidoo kale inta ugu badan aan guriga joogin ee rabana internetka inuu isticmaalo halkan waxa inoo yaala device keenani waxa weeyaan waa digital device yar oo loo yaqaano MiFi gu muxuu yahay dadka qaar MiFi ba u yaqaanaan dadka qaar waxa u yaqaana wireless modem dadka qaar wireless device dhamaantood wada sax waa device yar oo sim card ba soo gala sim card ka soo gala ayaa shirkadda sim card ka soo gadatay ee aad lacagteeda ku shubatay ayaa ku ogolaanaysa inay communication la soo sameyn karto device kaagaas oo internetka uu kaaga soo xambaari karo dabeetana waxaad u ogolaanayaa devices kala duwan oo guriga ku yaala ama goobaha shaqada ku yaala inaad ku xiriirsan kartid ha noqotaan tablado ha noqotaan mobile dhamaantood inay kugu wada xiriirsamayaan hal dhibaato ayuu kali leeyahay oo aan badnayn number of users ku markay bataan inuu speedkii hoos u dhacayo taasina waa inta ugu badan ta dhacda waxay la mid tahay hadii biyo cabayso jeega biyaha la cabaya hadii uu dad fara badan cabana uu hore ka dhamaanaya ama uu yaraanaya haday dad kooban cabana waqti uu sii joogaya marka waa saas oo kale marka inta ugu badan bandwidth-kuna waxay ku xiran tahay sidoo kale laga aad ku soo gaadhayana waxay ku xiran tahay access point-ka ama anteenada mobile-kaaga ku xidhaya intuu hadba ku jiro hadii access point-kaasi uu ku dhow yahay sidoo kale speed-ku fiicnaanaya hadii kale uu koobnaanaya taasina way dhacdaa inta marka ka imaado mid afraad baa jira ama option-ka afraad waa in adigu mobile-kaada adigu isticmaalaysid inaad ku shubatid data aad ku shubatid oo lacagta mobile-kaaga internetka aad ku isticmaalaysid prepaid-ka qayb kamid ihi inay noqoto qayb matalan aad u adeegsanaysid inaad data ku isticmaashid taasina waxay keentaa inaad data aad iibsatid inaad qaybo kamida aad hadba mar isticmaashid waana habka ugu fiican ee imika qofku uu isticmaali karo laakiin habkan modemku wuxuu ku saacidayaa inaad adigoo goobtaada shaqo jooga ama adigoo goobtaada waxbarasho jooga inaad number of devices hal mar ku wada xiriirsan kartid waxa laga yaabaa inaad maskaxdaada ay ku soo dhacdo sidoo kale okay waxa jira wax la yiraahdo hotspot oo mobile-kaygu leeyahay oo aan internet ku qaybsan karo habkaasina waa jira oo hab isaga laftiisuna mobile-kaaga aad ogolaanaysid iyo computer-kaaga aad isku xiriirsanaysid internet-ka aad ka helaysid laakiin hadii number of users ku badan yihiin waxa kugu la talin lahaa inaad modem yar iska qaadatid shirkadaad ka qaadanaysaa waxay ku xiran tahay dooqaaga iyo lacagtaad haysatid mar walba kaasi waa habka markaasi ugu sahlan ee aad ku isticmaali kartid waxa u baahnaanaysaa inaad sidoo kale charge gareysid sometimes qaarkood waxa yara dhibaato ah inay kambari u xidhan yihiin oo kambari gaar u leeyahay qaar universally way jiraan oo iyaguna sidoo kale cid kastaaba ay leedahay oo haddaad sim card-ka u baahatid kolba aad gashanaysid sim card-aduna sidoo kale waxay yihiin qaar aad adiga ku xidhan jeebkaaga oo aad soo iibsanaysid lacagtaad ku shubanaysid iyo waxyaabahaas marka kaasina waa hab aad u fiican isaga laftiisa oo la isticmaalo hadday su-aashaadu tahay keebad igula talin lahayd adiga waxaad kugu fiican haddaad arday tahay labadan midkood baa kugu fiican haddii aad gurigaaga internet uga baahanaysid kii labaad digital subscriber line-ka ka dambeeyey ee anteenadii customer premises equipment-ka guriga la soo gelinayay ayaa isaguna sidoo kale fiican kaasaa markaasi bishii lagu soo deynaya lacag bishiina markay dhamaatana sidoo kale lacagtii kale ayaad ku shubanaysaa okay qofka qaarkood dadka qaarkood wuxuu isweydiinaya inuu yiraahdo okay anoo shirkadaanba mareynin anu miyaanan internet samaysan karin waad samaysan kartaa laakiin taas waxay u baahan tahay lacag aad fara badan shirkad hadaa tahay waxaad soo iibsan kartaa dish weyn oo aad gurigaaga dhex dhigatid oo la yiraahdo VSAT-kaasi ayaa satellite-kaad ku xidhiidsanaysa kaasina lacag aad fara badan oo $10,000 kugu kacaya dooq labaad ba bedeli doona bari dhow oo waxa soo socota wax la yiraahdo Starlink oo aynu mar kale ka sheekay doono oo isagana internetka lagu helo